وعدرت مقالة مقدشة سوق قاري رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد كاسو بوقشة رسمي أكو يمي مقالة مقدشة عاصمة دالك الصومالية سي ولا كل مو مدحوينها دالك حسن شيخ محمود بيان رسمي oo ay labadoodu si wada jir ah uga soo saareen xarunta dalka ee Villa Soomaaliya ayaana waxa lagu xusay in booqashada Abiy ay daba socoto wada hadallo istaba joog ah oo dhacay dhowrkii bilood ee tagay kuwaas oo lagu xoojinayo dib u heshiisiinta labada dal inay iskaashadaan korna u qaadaan danahooda guud dhiirigelinta nabadda iyo amniga iyo hagaajinta xiriirkooda bayaanka rasmiga ah oo sidoo kale afqalaad lagu qoray ayaa waxa ku jirta kelmadda interdependence oo macnaha ugu dhow ee af Soomaaliga uu noqon karo isku tiirsanaan taasoo yeelan karta macnayo kala gedisan haddii aanu yara sharaxnana dalal baa jira isku tiirsanaantoodu ay gaarsiisan tahay inaanu midkood jiri karin kan kale la'aantii taasoo muhiimad istiraatiiji ah siinaysa dalka inta badan lagu tiirsan yahay tusaale Belarus waa dal madax bannaan balse ku tiirsanaanteeda Ruushku waa xitaa dalka gayeysiisay heer aanay u qaab akayn dal xor ah waayo waa rumor ku daba xiran oo iska daba socda dalka jiidaya ee Ruushka dibadda asaasiga ah ee fongoran ee dalalka noocaas lagu tilmaamaana waa wax loo yaqaano dal meera ah ama satellite state oo loola jeedo in danihiisa oo dham ay ku wareegaan dalka kale ee uu ku tiirsan yahay sidoo kale waxaa jira dalal isku tiirsan qaab uu midka wax ku tiirsan dhiig miirto midka lagu tiirsan yahay sida xiriirka Mareykanka iyo Israa'iil oo bariga dhaxaba ku joogta ama uga kabraaleysa kaashka iyo karaanka Mareykanka hayeeshee tibacdan hadii la macneeyo ama la qayaxo ma wada xuma oo waxaa jirta mar ay dalalku isugu tiirsanaan karaan si togan oo uu ka dhaxeeyo xiriir rogaal ah oo xushmad ku dhisan oo ay wada ilaashadaan dana dhaqaale dhaqan siyaasad iyo istiraatiijiyado ka dhaxeeya sida dalalka midowga Yurub ama si guud hadii aan u eegno reer galbeedka walow ay haatan u muuqdaan inay si kala furanayaan yeelkeeda waxaa jirta arrin mudan in madaxweynaha Soomaaliya lagu amaano marka la eego hal arrin oo ka dhex muuqatay qaabkii uu u soo dhaweeyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo min garoonka aadan cadde ilaa madaxtooyada Soomaaliya aanay raacin wax kolonyo ciidan shisheeye ah iyo xitaa beebayaal iyo tawaangi qafilan oo ay Soomaalidu ku joogto xusuuso dalku waxa uu soo maray xilli askari amisom uu dul taagnaan jiray ama fadhin jiray albaabka xafiiska madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha Soomaaliya garoonkana ay iyagu ku soo dhaweeyaan salaanta uga qaataan isla markaana soo galbiyaan madaxda ka imanaysa caalamka oo sidoo kale jirta arrin kale oo ay shacabku aad uga cawdaan marka ay soo degayaan madax caalami ah taasoo ah in jidadka magaalada la xiro waliba waqti aan go'nayn tii ay jirto in dadka qaarkood ay dibadda u safrayaan ama ka imanayaan isbitaallo shaqooyin iyo waxbarasho u socdaan iyo wax la mid ah balse ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ku dhaqaaqay hindise ay dadweynaha iyagu ku geynayaan garoonka diyaaradaha aadan cadde taasoo hadii loo wajaho si hufan oo aan tooxsi musuq iyo xirfad xumo lahayn lagu yara ayman karo sidoo kale dhaanta in dadka jidadka laga xirto qorshe bidaal ahna aan loo soo bandhigin walow aan taasi wada xalinaynin dhibaatada jirta maadaama aan sidoo kale la qaadin dadkii u kala socday isbitaalada shaqooyinka iyo hawl maalmeedyada kale inta ay cabta kale ay arintani leedahay waa in dadka ay booliisku qaadeen kaliya lagu koobay rakaabkii raaci lahaa diyaaradda Turkish Airlines sida ku cadeyd ogeysiis lagu faafiyay degalada taliska qaybta guud ee booliiska gobolka taasoo marka laga soo tago cadaalad darrada ku jirta sidoo kale dawladii dhameyd ee dalka u ekaysiinaysa mid u shaqeysa ama muhiimad gaar ah siinaysa shirkad diyaaradeed oo uu leeyahay dal qalaad sida darteedna hadda kadib waa inuu aqligu shaqeeyaa oo aad looga fikiraa go'aamada dhinaca ka raran ee noocan oo kala ah Maxamed Xaaji Hadalsame TV